الحمد لله الشكر لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو هذا دمانتين ما أنتم حكى لنا أرين حساسي آدي حساسو ورنتي أباهن إن لغوض حلو أرنتان إلا مدو ويسو سعوتي لكن كونفيرم وحاله لي ما أنت يا كونفيرم لي بلامتي شركي إن شاء الله مركا وحاجرتا أرين وحاجرة مهمة أو إلا غوضة حلو هلا شرقريو كدي مركي اللي أجي ما أنت أدونك واحد كتاجن كدي مركي اللي أجي عافماد درada adduunka ka socota kadib markii la eegay dhibaatada uu keenay cudurka coronavirus kadib markaanu garanay in wadanku aan laga sameyn karin doorasho cod iyo qof ah kadib markaanu garanay in runtii maantu aad ugu dhib badan tahay in la isku dhawaado ama la shaqada xataa problem ka jirto سوالاتك الحري عارف ماذا وجد كورونا waa cudur dilaa oo qofku uu ku soo bixi karo 14 bari kadib wixii ka dambeeyo coronavirus hadda maana soo gelinana ka hadalno maanta waxaan u soo galay oo aan rabaa oo hadda i soo gaaray dhowr daqiiqadood ka hor was 6 o'clock in the morning in Mogadishu. waxaa telefoon ii soo diray rag aan ka shaqeeya madaxtooyada waxaa la soo saaray markii la eegay dhibaatada ka taagan adduunka nabad iyo nolol in 2 sano loogu daro inaysan dhici karin 2021 inaysan dhici karin doorasho Soomaaliya ka dhici karin Soomaaliya Uganda dawladaha Afrikaanka ah ee hadda doorashadu soo dhowdahay halka sano ka dhiman tahay dhammaan waxaa la yiri dadku isku ma tagi karaan dadku soo dhawow dadku ma isku tagi karaan meel ma wada fariisan karaan ma isku soo dhawaan karaan sababaha taas awgeed nabad iyo nolol in loogu daro 2 sano oo kale 21 22 23 hadduu ilaahay nafta nagu simo in doorasho Soomaaliya ka dhacdo marka ragga ku shirahaya Puntland oo tiri Soomaaliya dawladda dhexe wax lama qabato goboladii waxaas horta hore waxaa ka horeysa ma imaan kartaa ka horeysa in ay dhacdo Axmed soo dhawow inuu dhaco doorasho inay dhacdo ma imaan kartaa marka hore ka horeysa marka ninkii ku farxi lahaa iyo ninkii ka nixi lahaaba xasan cali khayre iyo farmaajo waxaa loogu daray baarlamaanka aqalka sare ee aqalka hoose ay gudbiyeen shalay markay ahayd saacadu 1:00 duhurnimo la gudbiyay in loogu daray 2 sanadood 21 22 23 February 8 in doorasho la qaban doono sababta ay tahay maadaama madaxweynaha Uganda uu ku dhawaaqay ilaa macnaha isagu wuxuu yiri ilaa amar dambe macnaha waxay noqon kartaa 4 sano 2 sano 5 sano laakiin dawladda Soomaaliya maadaama ay dad badan jiraan dhahaya waqtigeedu waa inuu dhacdaa waxa ayaga dawladdu watana maaha waa wax dadweynaha iyo reer galbeedka ay wataan in la yiri 2 sano way ku qasban yihiin in wadanka hadda madaxda haysa ay sii hayaan maadaama uu jiro cudurka coronavirus waxay keentay waxyaalo badan kaliya ma aha
in ay keentay maaragtay doorashooyin kaliya waxay keentay inaanan la isku gudbi karin waxay keentay inaanan la isku maaragtay dhaqaaqi karin Soomaaliya waxay mar dhow sameyn doontaa ayada naftigeeda inkastoo hadda ku dhawaaqday dadka soo galaya in la fiiriyo wuxuu yahay qofka soo galaya Soomaaliya dawlado badanna hadda way bilaabeenba dawladda Ingiriiska way xirteen Mareykanka way xirteen Jarmalka way xirteen Turkiga way xirteen Canada aniga joogo way xirteen everybody qof hadda u gali kara male waxa taas ka sii daranba socodkii magaalada yaraaday saaka anigu salaad subaxii masaajidka aada ilaahay naga aqbalo inkastoo hadda la yiri xataa masaajidka dhibaatadii iyo maaragtay way koos gareysay masaajida badan baa xiran hadda markaan galabta weydiiyey maghrib casarkii doorkii aan ku tukanayay baan ku tukaday casar iyo maghrib guriga aan ku tukaday waxaan weydiiyey imaamka ayaan doorkii weydiiyey waxaan yiri jimcahan ma tukanaynaa haabu yiri laakiin waxa laga dhigay waxa dhan isku soo duuduubo 10 daqiiqo laga dhigay maaragtay khudbada iyo 5 daqiiqo la tukanaa 15 minutes ka badan lama joogo karo masaajid laakiin masaajidadii Mareykan inta badan waa la xiray marka taa waxaa ka garan kartaa dhibaatada uu coronavirus u keenay Soomaaliya u keenay adduunka marka Soomaaliya way khusaysaa Soomaaliya way khusaynaysaa absolutely way khusaynaysaa Soomaaliya marka nabad iyo nolol waxa marnaba aysan macnaha ayagu kama aha nabad iyo nolol ma aha inay waxan samaysanayso laakiin nasiibkoodu noqday because nasiibkoodu wuxuu u noqday adduunka waxay cudurkaas ayay marka Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo waxaan dhahayaa guriyo labada sano dambe ee lagu daray baarlamaanka sare iyo baarlamaanka hoosaba lagu daray wasiiradu iyo dawladdu ay ku dhawaaqday wali kumayna dhawaaqin laakiin way ku dhawaaqi doontaa sida balafka ugu soo gaartay ilaa hadda waxay ku mursan yihiin dadkan maaragtay aan maxaafidka ahayn waxyaalaha ay dhihi doonaan marka laakiin never know because meeshan waxa weeye waa arrin soo korodhay weeye ma aha wax iska samaysanayaan Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo waa wax adduunweynaha oo idil la ogyahay waaye waa wax United Nations la ogtahay waa wax Amazon la ogtahay wax everybody la ogyahay inaan la qaban karin cudurka dartiis inaan la qaban karin maxaa la oran jiray aan la qaban karin doorasho because doorashadu waxay u baahan tahay in xor loo helo labada qof inay istaaban karaan inuu isku soo dhawaan karaan inuu qof kale meel wax ku ridi karo wax lama sameyn karo marka saas darteed wadankiina inuu socdaa loo baahan yahay hadda madaxweyne joogana madaxweyne kale iskama keeni karo marka in labadaas sano loogu daray waxaan leeyahay congratulation aad baan maaragtay anaga dhan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxa laga yaabaa intaas labadaas sano inay wax isbedelaan oo ay wixii ay rabeen oo ay mowqifka ay lahaayeen inay maaragtay ay gaaraan baa laga yaabaa Soomaaliya anaga dhibaatada hadda haysto waxa way dadkii ma siino waqti uu 4 sano kaliya aad bay u yartahay waxa fiirinaysa 5 sano in laga dhigo laakiin way iska dhacday marka waxaan ka qaban karna malaha marka congratulation leeyahay idinkana anaaqina Soomaaliyeey waxaan waa wax rabbaani ku yimid waa wax ay keensadeen maaha prime minister iyo madaxweynaha waxaan wax rabbaani ah waaye si rabbaani u dhacay waxa way wax kastana amarka Ilaahay buu ku dhacaa wax qof kaliya uu sameyn karo maaha marka halka waxaan ku leeyahay Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre Ilaahay naga dhigo labadaas sano kuwii wax ku bedeli lahaa Ilaahay hay naga dhigo oo wadanka wax u qaban lahaa Bashiir Axmed Soodow saaxiib oo wadanka wax u qaban lahaa wadanka horumar gaarsiin lahaa Allah idinkana inaga dhigo mid kale xogta waxay tahay Soomaaliya waxa hadda laga helay hal qof baa laga helay oo qaaytinka ka tagay Kenya ka tagay waxaan aad ugu faraxsanahay oo kale oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in qaadka laga joojiyo Soomaaliya waana arrin aan aad iyo aad ugu soo dhaweynayo shacabka Soomaaliyeed dawladda iyo qof kasta oo arrintaas maaragtay ku lug leh
qaadka marka horeba Soomaaliya dowladda Ingiriis Kenya wuxuu kusoo jiri jirtay daawooyin la yiraahdo maaragtay daawooyin oo waxa lagu buufin jiray qofka uu markiiba hore ka dhimanaynin laakiin addicted uu ku noqonayo waa sidii sigaarka oo kale lungs problem ku ridaya marka Soomaali badan baa waxa u dhimatay baa la yiri waxay u dhinteen not oxygen inside the oxygen koodi baa low down noqonaya oo maskaxda geenaynin qaadka dartiis qaadka wuxuu keenaa wax fara badan hallucination buu keenaa waalli buu keenaa wuxuu dilaa shakhsiga immune system kaagi buu hoos u ridayaa waxyaalo badan because shakhsigaas waxaa laga yaabaa inuu qof taf ahaa qof firfircoonaa inuu immune systemkiisa uu hoos u celiyo marka iyo illusionally macnaha hilmaan iyo isla hadal iyo waxba ila hadlayo qaadka waxyaalo badan buu keenaa marka aad baan u faraxsanahay ayadana qaadkii in Soomaaliya laga joojiyo waa mid aan runtii aan filanaynin laakiin haday arintaas dabowdo waa mid aan aad ugu farxayno adduunka meel kasta aan ku noolnahay haddaan Soomaalina haddaan nahay aabooyin haddaan nahay hooyooyinka ideeyihiin dhalinyarada dhammaan sportska iyo qof walba oo quseeya danta Soomaaliyeed aad buu u farxayaa dadka jecel nabadda iyo wadanka inuu hagaago dadka jecel oo dad badan oo meeshan waxaa jira qaadka ka sameeya lacag waalan aad u waalan waxaas dadkaas they don't care because ayagoo maba cunaanba laakiin waxay ka sameeyaan lacag badan bay ka sameeyaan dad badan oo aan ognahay oo Soomaaliya joogo oo ganacsatayaal ku jira oo untouchable ah la taaban karin hadda way dhacdaa in qaadka la keeno ayadoo la joojiyay in si khalad loo keeno qaadka oo diyaarada khaas lagu keeno oo la taaban karin dad waxaa jira la taaban karin sharciga ka weyn Soomaaliya sida odagan la yiraahdo odagan iska leh telecommunicationka muxuu ahaa odagan telecommunicationka iska leh I don't remember his name Hormuud oo kale Hormuud iyo madaxweynaha Soomaaliya markay airportka labada ka soo degayaan waxa ka muhiimsan madaxweynaha Soomaaliya Hormuud ninka xukuumadda ka muhiimsan waa la xiraa airportka ku imaanayo way ogyihiin xalana laga soo baxaa hataa wuxuu wataa gawaaridiisa diyaarad buu leeyahay khaas ah madaxweynaha Soomaaliya ma leh diyaarad khaas diyaaradiisa waxaa ku jira dhiiggiisa ku jira sidii madaxweynaha Mareykanka oo kale u dhaqmaa dhiiggiisa ku jira dabiib wuxuu leeyahay baabuuruu leeyahay diyaaradiisa la socota oo baabuurada oo macnaha intaasoo kilomitir aan gaarinin hubka waxba ka gaarinin waa special gawaari ah waaye special wuxuu leeyahay forces oo ilaaliya oo Soomaaliba xataa ahayn marka dadkaas oo kale hadduu dhaho qaad baan keenayaa qof taaban kara ma laha because nin airportka loo xiraayo oo diyaaradiisa loo xiraayo laba diyaarad hadduu keensado soo ijaarto tidee uu samayn karaa qof la hadlaysa ma laha marka way iska jirtaa dadaan la taaban karin asaga xataa la mid ah laakiin maaragtay invisible ah oo la arkaynin oo maaragtay aanan macnaha maaragtay back to blank maaragtay gadaal kaga jira daaha oo dad badan oo Soomaali waxaa jira gadaal daaha kaga jira oo aan la arkaynin laakiin wadanka qiimo weyn ka leh wadanka waxa ka dhacaya og lagala tashto laakiin haddana magacooda aan garanayn oo badan baa jira marka Soomaaliyeey waa la tashtay adduunku waa tashteen marka labadan nin aan oo guuriga dhahno annagoo naxastin dadkan mucaaradka waxaan dhihi lahaa maadaama cudurkan corona yimid ayagoo maysan keenin Allah keenay marka haday labadaas sano loogu daro you don't have a choice guys marka ama ku shira Puntland ama ku shira Jubaland ama ku shira meel kasta arabtiin ama Soomaaliya ku shira wixii haday dhaceen waa wax dhacay waa wax dawladdu ay ma ayagu rabeen ma laakiin wax adduunyada ka dhacay waay marka I'm very sorry aad baan uga xumahay waxaa la yiri Ilaahay wuu u jeedaa qofka wax kasta sameeyo xun uu arkaa
marka dee waxaa laga yaabaa ayaguba intaas inuu ilaahay oga dhigayo 2 sano loogu daray inay wadanka wax ka qaban doonaan haddayba ka badbaadaan cudurka virus marka waxaan kula talinaya madaxda Soomaaliyeed inaysan diyaaradaha raacin inay safaradooda badan aad u soo joojiyaan madaxweynaha Soomaaliya inuusan shirarka qaarkood uusan gelin oo u diro wasiiradii iyo dadka ku shaqo leh meelahooda u diro isaga prime ministerka in ay guryahooda isku soo xiraan in wadanku wuxuu adduunku hadda marayaa xaalad aad u xun oo mugdi ah qof arki karaa ma laha marka hal islaaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo idil waxaan leeyahay ilaahay aanu barino dib aan ugu noqono rabbiga casiiska dib aan ugu noqono aan barino Allah azza wa jalla inuu ilaahay cudurka naga badbaadiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. خير بينيتي. assalamu alaykum.